السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف كستoo ka soo qayb galay tacsida saaxiibkeen walaalkeen naga mudan duco naga mudan qof kasta waxaan ku salaamayaa nagu soo sharfay inay ka soo qayb galaan mansabkiisa magaciisa ayaan dhamaantood ku salaamayaa. kullayba walaalkeen waxaan ugu markacaynaa oo shahaado aan ka nahay antum shuhadaa Allahi fil ardi inaan nahay marqaati inaan u nahay nin ku soo foobay wanaag sidii xadiiskii laga wariyay Anas bin Malik oo rasuulka xaqiisa ka ahaaday janaasa soo martay rasuulka markay soo martay rasuulkiina waxa marka janaasada waa la amaanay wajabad ayuu saddex mar dhahay rasuulkeen sallallahu alayhi wasallam. ka bacdi waxa soo martay janaasa kala soo martay wajabad marka tii hore marka waxa lagu amaanayo marka wanaaga lagu amaanayo marka wajabad wax kale ma dhihin rasuulku saddex mar ku celiyay mid kala soo martay macnaha lagu amaana shar lagu amaana rasuulkuna wuxuu yiraahday wajabad saddex mar waa ka aamus rasuulka. marka Umar bin al-Khattab saxaabiga weyn oo jililka khulafaa raashidigan kamid ah ag fadhiyay rasuulka Allah markii tii hore waxa dhahday khayr lagu amaanay wajabad ayaa saddex mar tiraad marka tii dambana waxa tiraahday shar lagu amaanay shar lagu sheegay wajabad hadda saddex mar dhaad rasuulka Allah wuxuu weydiiyay rasuulka Allah maxay tuudo waa weydiiyay rasuulku waa weydiiyay marka rasuulka Allah asoo ka cabir qaadanaya dadka macnaha waxay qofkaas ku ogaayeen iyo amalkiisa iyo wanaagiisa kii hore wanaagay dadka ku sheegayeen qofku markuu wanaagsan yahay ay leeyihiin qof fiican naga tagay naga baxay dadka afkooda ayaka qofkaas ugu marqaati furaa qof kasto nool anaka naga mida waa macnaha wanaagiisa iyo akhlaaqdiisa markuu dhintaa dadku wada sheegaya hadduu wuxuu yahaana inuu wuxuu yahay Allah naga wada leeyahay nin baasa naga tagay marka qofkii wanaagii lagu sheegay oo maaragtay wajhada rasuulku dhahay dakhala aljanna macna wajhada lahu aljanna macna janna u waajibto qofkaas qofkii xumaan lagu sheego maaragtay dadkii xumaan ay ku sheegeen naara qofkaas u waajibto waa bedelkeedii marka kullayba waxaan ka marqaatinahay oo annaguna aan marqaati u nahay inuu ahaa qof maaragtay wanaagsan sifadiisuna qof wanaagsan ay ahayd marka marqaatiyaan ka nahay ilaahayna waxaan u rajeynaa jannatul firdawsa inuu ka waraabiyo waalidkii iyo deegaankii iyo dadkii uu ka geeriyooday khaasatan deegaanka reer Guraceel iyo qaranka tacsiib ballaaran ayaan u dirayaa ilaahay maaragtay jannada inuu geliyo annaguna marqaati aan uga nahay oo niyadana aan uga duceyno walaalkeen qof nagu qaali wahay qof furfuran wahay qof waxaan ku ogaa maaragtay qof uu aqoon iyo qof uu yaqaanaba isku si u ixtiraam qof ka soo naga midna waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo walaalkeen Muhammad Yunus Muhammad Abdidoon oo kale inuu noqdo ku sifoob oo qof ka soo hadeerta nool oo nolosha ka faa'iideysto nolosha waxaad uga faa'iideysan kartaa dadka aad la tacaamulayso dadka aad maaragtay xiriirkan ka dhaxeeyo bulshada maaragtay wax ka sugaysa inaysan waxna ka taban oo ninkaan ku dasho uu noo mudan yahay Yunus ku dasho noo yahay maaragtay wax tiiraan yaana macnaha sheegay ooyina waxaas oo dhan waalidka dadka uu ka baxay iyo aysan dareemin oo janna aan u rajayno dhamaanteen